وابلغ. السلام عليكم. السلام عليكم أصحابتي ميل والبا أدونك كجوجتين وين سلامي وعبد المالك جمعة وناكسن مال وناكسن ميل والبا أدونك كجوجتين وين سلام أصحابته سؤال هذا ميل والبا أدونك كجوجتين وحلا سومالي هقول استان لهاي عدو سومالي جب الله كريدو سومالي هقول استان لهاي عدو سومالي جب الله كريدو دولة سومالي هور صعد كوا تاجر سناي maxaan ku raahdaa ishaag ra-iisul wasaare khayre oo ah ra-isul aan wada jecelnahay oo nin wadani ah oo aan wada taageersannahay aad iyo aad aan taageersannahay ra-isul wasaare khayre soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha israacdo soomaaliya ha midoodo cadowga soomaaliya jab allah ku rido assalaamu calaykum asxaabta maanta mawduucaan ka hadlayno maanta hala sii sheer gareeya asxaabta meel walba adduunka ka joogtiin sii sheer gareeya maanta mawduucaan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay mooshinka ra-isul wasaare khayre ay ka keeneen cadowga Ethiopia maanta mawduucaan ka hadlayno wuxuu ku saabsan yahay mooshinka ra-isul wasaare khayre ay ka keeneen dowladda Ethiopia iyo cadowga Soomaaliya oo bari ay ku wadaan inay ku sameeyaan maxaan ku rahay afgambi ay doonayaan inay ku tuuraan meesha si wadanka cadowga uu noogala wareego ra-isul wasaare khayre aad ogtiin inuu yahay wadani wax yarna wadanka ra-isul wasaare ka ah waxaad la socotaan ra-isul wasaare khayre oo kale inuusan weligeed soo marin taariikhda maantay annaga maanan ogeyn xataa annaka maanan ogeyn qof kastoo Soomaali qof ogaa ma leh dad Soomaaliyeed inay ku xiran yihiin Ethiopia ra-isul wasaare khayre maantay waa ninka 130 qof 130 ruux oo intaasoo sano ku xirnaa oo Ethiopiaanka u xirnaa xabashida u xirnaa salaada loo diidi jiray inay tukadaan maxaan ku raay yani cadowga gacanta ugu jiray maxaan ku raay ishagan si xun loo dili jiray jeelasha Ethiopia ka buuxa meel walba raggaas oo wax dambiya aan gelin maantay waa ninka soo daayay oo wada ka soo qaaday haddana u socda inuu soo daayo kuwa Seychelles ku xiran iyo kuwa maartay macnaha ku xiran dawladahan kale ee adduunka dhan ku wada xiran caalamka dhan ku wada xiran inay xiran yihiin xataa dadkaas cid ogeyd ma leh kuwa Seychelles ayaan live ka aragnay laakiin kuwa Ethiopia ku xiran xataa cid ogeyd ma leh maantay waad u jeedin wax qabadka ra-isul wasaare khayre inaan hal iyo laba lagu soo koobi karin markay aragtay dowladda Ethiopia ee cadowga Soomaaliya ah iyo Sacuudiga oo dawladda ka riixay oo lacag soo siinayay markay arkeen ra-isul wasaarahan inuu yahay ra-isul wasaare wadani ah wadankan oo hore u socdo oo maxaan ku raay sheeg mar dhow oo aan dheerayn oo wadankan horumar gaarayo Soomaaliya ay ka baxayso dhibaatada ay ku jirto haddii ra-isul wasaarahan uu sii joogo waxa ay maxaan ku raay yani lacag ku bixiyeen juhdi jaajuusin ay iibsadeen ee baarlamaanka nooga buuxa oo aad ogtihiin maxaan ku raay yani qaarkood ninka leeyahay xidig inuu toos ula shaqeeyo dowladda Ethiopia oo iska caddahay ma salaad oo xaaladiisa aad ogtihiin taariikhda Soomaaliya ka leeyahay ninka la yiraahdo maxaan ku raay fiqi iyo tuugo kale badan oo baarlamaanka ka buuxa inkastoo rag badan oo wadaniin ay ku jiraan maxaan ku raay ishagan baarlamaan shaqadiisu ay tahay mooshin inuu keeno oo ra-isul wasaare iyo madaxweyne isku diro kala geeyo shacbiga Soomaaliyeed wanaag baan ka shaqeyn inuu meeshan baarlamaan noo yahay waad ogtihiin waaba ka maarmi karnaa maanta dowladdan shacbiga ayaa soo doortay shacbiga ayaa waxtarkeeda og shacbiga ayaa u baahan dhibaatada inuu ka baxo dowladda Soomaaliya inay hore u socoto shacbiga ayaa u baahan baarlamaan 5,000 la siiyo oo meel iska soo fadhiya wax wanaagsan aan qabo ilaa hadirtan dastuurka wax lagama qaban ilaa hadirtan maamul goboleedyadu waa kale maamul goboleedyadii ilaa hadirtan macnaha sharci oo maartay ay ku midaysan yihiin lama samayn ilaa hadirtan maxaan ku raay yani midnimadii Soomaaliya lama soo celin baarlamaanka waxyaalihii loogu talagalay dhammaan qabtaba waad ogtihiin dowladda inay ay ku mashquulsan tahay xataa beecda magaalada Muqdisho inay soo celiso ay nadiifiso indhaha caalamka ay soo jiidato magaalada caasimaddu waad u jeedin lacagtii Soomaaliya ayaa la sameeynaya waad u jeedin maxaan ku raay maxaan ku raay yani dakhliga Soomaaliya hadda soo gala inuu 3 jibaar uu maartay macnaha uu soo fiicnaaday maxaan ku raay dowladda xukuumadda iyo dowladda wax qabadkeeda aad ogtihiin shacbiga ayaa soo doortay marka shacbiga waxaan ugu baaqayaa inay dowladooda ay garab istaagaan ay ka hiliyaan berri oo ah maxaan ku raay maalinta ay doonayso cadowga Ethiopia ay doonayso in ra-isul wasaare khayre ay meesha uga tuurto waxaan doonaynaa inaad ra-isul wasaarihiin aad u hilisaan aad garab istaagtaan qof walba oo Soomaali waxa looga baahan inuu muujiyo inuu yahay qof Soomaali ah wadankan asagu iska leeyahay waxaan leeyahay Soomaali ha guuleystaan leeyahay cadowga Soomaali jab Allah ku ridaan leeyahay Soomaali ha midoodaan leeyahay
qarannimada soomaaliya soo noqotaan le soomaaliya ha guulaysato ha midoodo soomaaliya ha noolaato maantay waxaan rabaa inaan ku wada baaqo meel walba adduunka ka joogtiin in aad samaysaan mudaharaad uga soo horjeedaan Ethiopia dowladda Ethiopia iyo maxaan ku raashay cadawga Soomaaliya soo adeegsaday baarlamaankan tuugada ah oo aad ogtihiin xaaladoodan aad ka warqabtaan oo maaragtay macnaha ishaq hadii lacag la siiyo maxaan ku wadankooda iibsanaya laba jaablayaasha waxa loo baahan inay ka soo horjeestaan cid allaari cidii Soomaaliya cadow ku ah wadankiina inaad difaacataan ayaa loo baahan maanta waxaad hesheen dowlad shacbiga oo hogaamiyo maanta waxaad hesheen dowlad shacbigu uu wuxuu yiraahdo sameynaysa ayaad hesheen maanta waxaa hesheen dowlad maxaan ku raashay ra'iisul wasaare khayr oo xukuumadda ra'iisul wasaare ka ayaa hesheen 2 bilood in ku baray intaas oo wax qabada oo aad ogtihiin yani inay maxaan ku raashay soo bandhigtay maanta waxaan rabaa inaan idin sheego inuu ra'iisul wasaare khayr hiil in kaga baahan yahay maanta haddii aad Ethiopian tahayna maanta cadaanaysaa haddii aad Soomaali tahayna maanta cadaanaysaa shacbiga Muqdisho haddii aad Ethiopian tiin oo aad cadow tiin maanta cadaanaysaa haddii aad Soomaali oo dhab aad tiin maanta cadaynaysaa magaalada caasimadda Xamar Muqdisho waa magaalada Soomaaliya oo dhan ay fiirsato ay jeceshahay waxa loo baahan inaad mar walba qaranka aad badbaadisaan oo kacdoon sameysaan ayaa loo baahan yahay inaad waxa loo baahan yahay wixii qarannimada ka soo horjeedo dhan inaad ka mudaharaadaan ayaa loo baahan yahay aad ka soo horjeesataan waxa loo baahan yahay bari maxaan ku raashay baarlamaanka inaad soo hor dhoobataan oo aad diidaan ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan inaad maxaan ku ficil muujisaan oo isku soo baxdaan ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay xaafadu inay isgaarsiiyaan xaafad kasta Muqdisho kamid in xaafada kale ay gaarsiiso Soomaalidu waxa loo baahan meel walba ay joogto inay baaqan ay u wada dirto wada shargarayso wada gaarsiiso ayaa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay bari mudaharaad aan waligeed ka dhicin adduunka ina Afrika aan ka dhicin mudaharaad aan ka dhicin inaad bari sameeysan ayaa loo baahan cadawgu bari inay nagaadaan ay doonayaan arrinta yalsan ayaan leeyahay waxaan leeyahay Soomaaliyay mudaharaad sameeya soo kacdoon sameeya ra'iisul wasaaraheena ayaan ka xisaarin waad ogtihiin oo maxaan ku raashay ninka la yiraahdo madaxweyne Farmaajo iyo maxaan ku raashay ra'iisul wasaare khayr inay yihiin dad wadaniin ah waliba ra'iisul wasaare khayr inuu yahay nin wadani ah waad ogtihiin oo uu yiri hadda kor xataa wadankayga inaa u dhinto diyaar ayaan u ahay wax qabadkiisa ay ka muuqataa intuu Ethiopia tagay 130 maxaabiis oo ku jirta Ethiopia inuu ka soo saaray waad ogtihiin Seychellesna inuu la kulmay maxaan ku raashay wasiirkooda arrimaha dibadda oo ku yiri maxaan ku dadka oo Seychelles iga xiran kulligood waxaan doonayaa in oo maartay macna laga soo saaro xabsiga maxaan ku wasiirka arrimaha dibadda ayaa loo diray oo soo waday ayagana kuwaas oo Muqdisho ka soo dejinaya waxa loo baahan ninka la yiraahdo waxa loo baahan waxa loo baahan inaan u sheego maxaan ku raacay ciidamada sirdoonka Soomaaliya iyo nabad sugidda waxaan rabaa inaan u baaqo inay dabagal ku sameeyaan ninka la yiraahdo xidig inay dabagal ku sameeyaan meesha ay cidda oo lacagta ka soo qaatay iyo cidda uu u shaqeeyo baarlamaanka iyo qaranka Soomaaliya inuu u shaqeeyo waa la ogyahay ninkaas ninka la yiraahdo Mahad Salaad sidoo kale in baartaan lagu sameeyo cid allaalay cidii dawladda ku jirta oo looga shakisan yahay inay laalush meel kale ka qaadato waxa loo baahan inay baaritaan ku sameeyo wadankan musuqmaasuq khaa'in wadani waaye marka waxa weeye maxaan ku ishaq waxa weeye sharciga Soomaaliya wuxuu dhigayaa dadkaas dambiilayaal inay yihiin ayuu dhigayaa oo ay mutaysteen xabsi in la geeyo in xabsi la geeyo ay mutaysteen sharciga Soomaaliya khaa'in wadani waaye maxaan ku rahay dastuurka Soomaaliya wuxuu qorayaa dadkaas in xabsi lagu tuuro maadaama ay ka qaataan dawladda shisheeye lacag ay ka qaataan ay markaas doonayaan inay madaxda Soomaaliya ay ku kala gataan waxa mooshinka sidiisa markii mooshin la arko waxa loo baahan ciidamada sirdoonka inay ka howlgalaan yaa ka dambeeya yaa lacagta ka soo qaateen maxaan ku raashay yaa dabada ka riixaya ragga shakhsiyaadka lacagta soo qaat meeqay dhan yihiin dawladaha soo sii waxa loo baahan in ciidamada sirdoonka hawsha ay ka howlgalaan Sambolosh iyo ciidankiisa Soomaalida waxaan ugu baaqayaa iyo sirdoonka iyo ummadda Soomaaliyeed siyaasiyiinta waxaan ugu baaqayaa in la soo baaro ninka la xidig cidda lacagta soo siisay cidda ka dambaysa mooshinkan cidda maxaan ku raacay uu adeegayo ninka la yiraahdo fiqi sidoo kale iyo adiga inta saddexdaad aan sheegay waa saddexda madaxda oo ah laakiin kulligood maxaan ku raacay waxa baarlamaanka oo codeynay mooshinka kulligood waxa loo baahan yahay mooshinka ka codeynay ra'iisul wasaaraha doon inay ridaan ra'iisul wasaaraha oo wax qalad aan gelin waxa loo baahan yahay in macnaha ay maxaan ku raacay dawladdu ay maartay macnaha ay baaritaan ku sameeysaa loo baahan ciidamada mar labaad aan ku soo celinaya ciidamada sirdoonka Soomaaliya waxa ugu baaqaya in raggaas baaritaan lagu sameeyo dabagal lagu sameeyo raggaas in baaritaan lagu sameeyo haddii ay ciidamo sirdoon oo wadaniin ay yihiin oo wadanka u adeegay waxaan u baahannahay inay soo saaraan siraha ka dambeeya maxaan ku raacay mooshinada mar walba xukuumadda iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laga keenayo mar kasta oo seeriga noqoto oo nagu soo laalaabanaysa oo hadba ra'iisul wasaare lagu dooro ra'iisul wasaare markii la tuuro ra'iisul wasaare kale soo dhisay iyo wasiiro kale soo magacaabay waxay qaadanaysaa muddo aad u far badan annagana muddadaas nagama goodo
waxaa loo baahan yahay waddankan inuu gadaal u socdo oo dib u socdo ay maarata caadaystay inay ka dhigaan mar walba marka waxaa loo baahan yahay ciidamada sirdoonka inay hawshaas ka howlgalaan inay soo saaraan siraha danaha shisheeyaha dadka u adeegaya ee cadowga soomaaliya ku ah waddankooda iibsanaya khaa'inan wadaninta waxaa loo baahan inay la soo saaro oo laga daba tagaa loo baahan yahay waxaan leeyahay dadkaas ka daba taga waxaan ugu baaqayaa sambalosho waxaan ugu baaqayaa iyo sirdoonka soomaaliya waxaan ugu baaqaya inay ka howlgalaan ninka laafiq cidda lacagta soo siisay iyo cidda uu adeegayo in la soo ogaado ayaa loo baahan yahay mar labaad si arrintaan oo kale ayna u dhicin haddana berri waxaan ugu baaqayaa inay shacbiga soomaaliyeed kacdoon ay muujiyaan ra-isul wasaaraha inay ay garab istaagaan oo ay kasoo horjeestaan oo golaha maxaan ku rahay golaha baarlamaanka ay ku mudaaharaadaan ayaa loo baahan yahay berri waxaa loo baahan yahay mudaaharaada sii shaargareeya meel walba adduunka ka joogto ha waxaan ka hadlayaa oo kale xeryaha militariga maxaan ku rahay lagu wareejinayo maxaan ku rahay yani xeryaha militariga xeryihii militariga hore dad shacbi ay deganaayeen oo maaragtay si xaq daran ku deganaa maanta markay tiri dowladdu maxaan ku rahay xeryaha isaga baxa oo dadkii militariga ayaa soo degaya dadkii militariga reer muqdisho ayaa xeryaha imaanaya oo maaragtay micnaha si caasimadda iyo ammaankeeda u sugaan dadka kasoo horjeesanaya dadka xumaanta faafinaya waxaa loo baahan yahay soomaalida inay ogaataan loo baahan yahay ay kasoo horjeestaan loo baahan yahay waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaystaan leeyahay hala sii shargarayaan leeyahay cadowga soomaaliya meelaha looga soo haraan leeyahay maanta waa ujeedin gacanta inuu kugu jira cadowga soomaaliya waa mooshinka kuwa wada cadowga soomaaliya waa mooshinka kuwa wada waa etoobiya waa sacuudiga oo dana gaara leh iyo imaaraadka oo doonaya waddanka inuu kala qaybiyo marka waxaan rabaa inaad kasoo horjeesataan lacag waxay sheegaysaa iska yar ninka la yihahdo farmaajoba waa aragtay shacbigiisa uu maarata micnaha ugu banaan baxay waxaa loo baahay sidaas iyo si la-eg inaad uga soo horjeesataan ugu helisaan walaalkeen wadaniga ah ra-isul wasaare khayre in waxaa loo baahay aad kasoo horjeesataan oo maarata micnaha aad muujisaan inaad waddankan adigu iska leedihin baa loo baahanya maantay hiil ayuu nooga baahanya ra-isul wasaare khayre intuu soo qabtay ayaad ujeedaan haddii loo sii daayo jegadiisa uu sii haysto waxaan aaminsanahay soomaaliya inuu gaarsiinayo horumar oo maanta ay ka horumarayso dowladaha yurub oo ku noolnahay iyo maraykanka ay ka horumarayso ayaa aaminsanahay soomaaliya waxay la tartamaysaa maxaan ku rahay dowladaha yurub iyo maraykan ayay la tartamaysaa lama tartamayso africa ama south africa xataa oo ugu qanisan africa lama tartamayso masar lama tartamayso waxay la tartamaysaa dowladaha yurub sida belgiumka ingiriiska jarmalka ayay la tartamaysaa waxay la tartamaysaa canada iyo maraykanka ayay la tartamaysaa maxaan ku rahay yani ayay la tartamaysa soomaaliya waxa la doonaya in horumar la gaarsiiyo saaxiibada inay curyaamiyaan bay rabaan etoobiya inay curyaamiysa ayay doonaysaa hadba cid bay soo adeegsanayaan laalushqaatay soo adeegsanayaan waxaa loo baahay arrintaas inay berri hartaa loo baahay soomaaliya inay arrintaasi ka hartaa loo baahay berri waxaan u baahanaa inaad mudaharaad muujisaan oo aad kacdoon muujisaan kacdoon kii turkiga ka dhacay mid ka weyn inaad muujisaan baa loo baahay ra-isul wasaare khayr ha noolaadaan leenahay waa la jirnaa ha noolaado sii sheergaraya asxaabay meel walba adduunka ka joogtaan waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato cadowga soomaaliya cagta hoostiisaan leeyahay cadowga ra-isul wasaare khayre cadow cagta hoostiisa aan ka guulaysano waa inoo beri insha allah mudaaharaadka subaxdiiba aroortii salaada subaxga marka laga soo baxo ilaa iyo duhurkii ilaa iyo casarkii ha socdo ilaa iyo hamiinkii ha socdo insha allah ilaa ra-isul wasaare khayre uu xor ka noqonayo ayaga oo tuuga ayay ra-isul wasaare khayre waxay intay bil ka hor intay la hadleen ayaa waxay dhaheen waxaan 8 bisha maxaan ku rahay yani July noo imow ma fahant waxaan doonaynaa in macnaha aan mooshinkaa keenne macnaha wadaninimadaada ayaan kugu haysanaa waxqabadkaagaan kugu haysanaa baa laleeyahay waxqabadka ayaa ra-isul wasaare khayre waxqabadka maxaa soomaaliya saan ugu shaqaynaysaa soomaalida ugu shaqaynaysaa soomaalida inaan duleynaan doonaynay soomaalida inaan bahdilnaan doonaynay waay aa wadani u tahay ayaa lagu haystaa waxaan leeyahay sii sheergaraya meel walba adduunkaa ka joogtiin asxaabta waa maalik cabdimaalik le soomaaliya ha noolaato ha isku tashato ha guulaysato ha midoodo khayr ayaan isku wada ognahay maa salaama